horta Badriyo hawshaas way jirtay weerarkaas uu jiray habeen hore ayaan ahayd waana wax cad aniyo walaalkay Cabdiraxmaan Aydiid baan wada soconay taana ku cadeynaya yaad u malaynaysaa in arintaasi ka dambayso wallahi horta ummadda lama xagto waxaan jirna lama sheego Badriyo cid aan ku oranayo cidaasa waxa ka dambeysay horta ma jirto laakiin weerarkaas uu jiray dabeedna dadku eriyaa cadifadaysan bay ku hadlayeen imika ma jirto cid aan oranayo cidaasa weerarkaas samaysay oo cidaasay ahaayeen Somaliland sidaad ogtahay fawda ma aha nidaam baa ka jira waad ogtahay ma jirtaa hay'adaha ammaanka ma u gudbiseen arintiin Badrow walgu horta hawsha waa lagu gudo jiraa dawladana baalasay aan waxa la yorto fanka siyaasadda laga daayo fankiisa siyaasadda meel mooda galaan nagu faan baanahay erigaasan oran lahaa fanka iyo siyaasadda hala kala saaro waxa jira dad badan oo adiga ku taageersan oo si weyn qaarkood cadha ka mujireen baraha bulshada qolo kale si kala u dhigaysay fariinta bulshada ku taageersan ee Somaliland aad u diraysaa maxay tahay waxaan aad iyo aad u mahadsantiin ani Hargeysa waa magaaladeedii waan magaaladan ku dhashay ku dhaqmay ku koray waa dalkaygii hooyo waxaan leeyahay aad baan idinku mahad celinayaa meel kasta oo joogtaan aad baan idinku mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad bulshada reer Somaliland geestiisa fanaan Cabdiraxmaan Aydiid Oday oo isna halkaasi ka hadlay waxa uu sii adkeeyay hadalka gudoomiyihiisa sida oo kalena waxa uu u mahadnaqay bulshada sida weyn u taageertay Badriyo wad maadsan tahay gudoomiyuhu uu sheegay wixii dhacay iyo sida uu dhaceen annaga wada soconay faafahinteedina uu sheegay Maxamed waana lagu daba jiraa waxaan u mahad celinayaa dhammaan ummadda meel kasta oo dunida joogan arrintan ka ficil celisay haddii af noqoto haddii ficil noqoto iyo haddii baraha bulshada noqotoba aad baan u mahadsanyiin waxaan ku darayaa oo kale in fanka iyo la kala saaro siyaasadda oo fanka la siyaasadaynin fanka iyo siyaasaddu isma geeyaan mana iskalaan aad baan u mahadsantiin dhammaantiin arrintaasina insha Allah bidnillaahi kariim waxay noqon doontaa arrin dadka reer Somaliland ay wax badan macnaha ay kaga